عفوك إني للنور مدت يداي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal magacaygu Cumar Maxamed Cali. halkani waa Kulmiye Private School. haddii ay tahay waqtigaadii ugu horeeyay aad isoo booqato fadlan waxaan ka codsanayaa in aad subscribe aad dhahdo kanalka Kulmiye si aad ugu soo biirto. haddaba muuqaalkan insha Allah maanta waxaan uga hadli doonaa waxa la yiraahdo importance of knowledge, waa muhiimadda ay leedahay aqoon inaad lahaato insha Allah. muuqaalkan fadlan waxaad gaarsiisaan dhammaankiinaba in uu gaaro ayaan u baahanahay ugu yaraan 100 like insha Allah. marka muuqaalka inta daawata way ka badan yihiin 100 qof. fadlan 100 like hala gaarsiiyo muuqaalkan si uu u noqdo muuqaalkii ugu like badnaa ee kanalka Kulmiye Private School. saaxiibayaal soo dhawaada inta kadib watahay casharkeena maanta waxaynu ku ambaqaadi doonaa hadduu alla idmo insha Allah. waxa la yiraahdo importance of knowledge. importance of knowledge waa muhiimadda ay leedahay aqoonta. aqoontu muhiimadda ay leedahay ayaan ku ambaqaadi doonaa casharkan. fadlan ila soco bilow ilaa iyo dhamaad ee casharkan. knowledge aqoontu is the key to success. waa furaha guusha. knowledge aqoontu is the key waa furaha to success ee guusha. you could gain respect waxaad heli kartaa xushmad. you could gain respect waxaad heli kartaa xushmad. power awood and position iyo boss ayaad heli kartaa through taasoo aad ku helayso knowledge aqoonta. intaasoo dhan waxaad ku heli kartaa waa aqoonta. knowledge aqoontu is a treasure waa kate. kate weeyaan aqoontu that cannot be stolen. kate kaasoo aan la xadi karin. that cannot be stolen. kate kaasoo aan la xadi karin oo cidna uusan ka qaadan karin. knowledge aqoontu enlightens waxay iftiimisaa. knowledge aqoontu enlightens waxay iftiimisaa the mind maskaxda and soul of the persons iyo nafta shakhsiga ayay iftiimisaa. knowledge aqoontu enlightens waxay iftiimisaa the mind maskaxda and soul of the persons iyo nafta shakhsiyaadka qofka. knowledge aqoontu is important waa muhiim in every phase marxalad waliba and every walk of life iyo shaqo kasta oo nolosha ah ayay muhiim u tahay. knowledge aqoontu is important waa muhiim in every phase marxalad waliba aqoontu waa muhiim and every walk of life iyo marxalad waliba oo shaqo oo nolosha ah ayay muhiim u tahay. knowledge aqoontu leads us waxay inagu hagtaa oo inagu hogaamisaa to the path of fame dariiqa ama wadada karaamada. to the path dariiqa ama wadada of fame ee karaamada and dignity iyo sumcadda ayay inagu hagtaa oo ay inagu hogaamisaa aqoontu. knowledge aqoontu is essential waa muhiim for success guusha in la guulaysto ay muhiim u tahay aqoontu. knowledge aqoontu is essential waa u muhiim for success guusha in la guulaysto ay muhiim u tahay. it is the ultimate of power. it is the ultimate of power. aqoontu waa awood iyadu dhan. it is the ultimate of power. aqoontu waa awood markaasi aan dhammaan lahayn iyadu. awood waliba oo marka way dhamaanaysaa in awoodda qofka uu dhinaca aqoonta uu ku leeyahay marka marnaba marka ma dhamaato. marka waxaan leenahay marka it is the ultimate. okay, it is the ultimate of power. it is the ultimate of power waa awoodda ugu dambaysa iyada. with knowledge aqoontu markaan leenahay we can achieve waxaanu gaari karnaa. we can achieve waxaanu gaari karnaa anything wax waliba waynu gaari karnaa. it helps us
waxayna inaga caawisaa aqoontu make inaan samayno informed decisions go'aano xog ogaal ah. Okay, it helps us aqoontu waxay inaga caawisaa make inaan samayno informed decisions go'aano xog ogaal ah. Knowledge aqoontu is the foundation waa aasaaska of progress ee horumarka. It empowers us waxay awood inoo siinaysaa aqoontu it empowers us waxay awood inoo siisaa aqoontu to face inaynu wajahno challenges caqabadaha inaynu u wajahno confidently si kalsooni leh. Knowledge aqoontuna is the key waa furaha to a better future ee mustaqbalka fiican. Knowledge aqoontu is the key waa furaha to a better future ee markaasi mustaqbal fiican lagu gaaro. So saadiradeed lack of knowledge aqoon la'aan is lack of light waa iftiin la'aan. So saadiradeed let's learn something wax aynu barano while we are in the world dunida intaan joogno. waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal inaad casharka daawataan. waxaan filayaa in wax badan aad ka fahanteen aadna ka faa'iideen. hadduu insha Allah eeba qadarana muuqaalka xiga insha Allah waxaan ka soo dhigi doono. fadlan iigu reeb qaybta commentiga si aan u eego kadibna aan ka soo sameeyo cashar hadduu alla idmo. dhammaankiinana waxaan filaa in muuqaalka aad ka wada hesheen. saaxiibayaal like-ta hala saaro casharkan. waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. رباه عفوك إني من نور مدت يداي